السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالي waxaan leeyahay meel kasto dunida daafiyada ku joogtiin ku soo dhawaada channelkeena oo walaashin Queen Naju channelkan ka daawanaysan waa Queen Naju asxaabi waxaan leeyahay meel kasto joogtiin adduunka waan jecelahay ilaahay kartimaadin jecelaad maantii wallahi maanta hadalku waan yara gafgafaya hadalka dhan wasqeeyay dhaxtaansan yahay because arrin jirta ayaa rabaa inaan ka hadlo oo aad u xasaasiya maanta waxaad san abda socotiin baas xaaday gabar walaasheena ayaa social media lagu ceebaysanaya xaq uu ila noqon weeyday anoo dumar leh oo dhibta la dareemayo inaan ka aamuso saas ayaan ku go'aansaday inaan arrinta ka hadlo san jecelahay waxaan jecelahay inaad si fiican ii dhageysatiin run ahaantii gabadhaas waa gabar yar oo aad u yar oo qurux badan maasha Allah oo mustaqbal ifaya leh oo markasta faraxsaneed walaalayaal maxaa ka helaysiin inaa ceebteeda faafisiin maxaa ka faa'iideysan inaa gabadhaas dib u gashiin wiilka xumeeyay waxaan leeyahay run ahaantii gabar waa la dhalatay haddana la dhalan way ku dhashay haddana way ku dhashay qasab hooyo horta gabarna way kula dhalatay wadna dhali doonta wadna guursan doonta afarta jeer gabar way kugu soo laablaabmanaysaa run ahaantii waxaana ku sameysay waa wax aad u xun wax oo aad ka damqan lahayd walaasha maanta hadii lagu sameeyo weeye adigu waa dad sameysay wada ugu tala gashay laakiin waxaan ka sii xumahay dadka sii faafinaya oo sidoo gabadha inay tacsi ku dhacday intay sawirkeeda gadaal iska soo saaraan dhahaaya waa lagu gudayaa waa lagu aarayaa waxaad ka soo qaadaysiin weyn camal run ahaantii gabadhaas wax qalad kuma ka eenan wax videogan oo wax aan laga sameeyay oo si qaldan social media ku soo galay run ahaantii wax si qaldan social media ku soo galay ina si faafisiin waa laga qurux badan yahay runta qof walba oo runta rabo bax intee degtid gabadha familkeeda u tago say wax u dhacaan soo dhac hadii runta rabsiina ogaatid hadii kale ma hano walaalayaal gabar weydina dhalatay way idin dhashay wayna idin dhixi doontaa qaybta intaas leeka daaya walaal anu markaan arkay arrintaas aad ugu murugooday aadna waan ugu ooyay run ahaantii arrintaas arrin aad iyo aad u xun weeye wax la eegan karo maaha sida social media wareegaysa oday weyn oo sarqaya oo aabahay baleeyo videogaas ka duubay kulli horta adigana xaalad rabbi way kugu dhacday ninna kuguma tilmaami karo nimanka dhana ceebaysan ma garatay waxaan leeyahay ragga Soomaaliyeed gabdhaha sida ka daaya mara dishiin mara kufsitiin mara ceebisiin mara social media tii soo gashay halka u fariisatiin walaa waxaan u ogoshiin ma garanayo bad inta isku tagtiin wax noo ogolaada dhinacu noo ogolaada way idin bariya hadda naga taagan tahay waayo waxaan aniga liiga sheekeyn jiray oo ama iyaga ka maqli jiray gabdhaha Soomaaliyeed gabdho lagu faanay ahaayeen run ahaantii waxa ku faani jireen walaaladooda hadduu qof ka qashqaado ay jirtay gabadhu wiilka la dhashoona warka heeneen wiil baa la dhashay ilmaadeeraan leeyahay marka walaalayaal oo idin bariya xeebtay fadeexada naga daayay please sidan kan wax ka bedela maanta arrintan aad iyo aad baan anigu uga naxay arrin aad uga xumaaday weeyaan gabadhaas gabar yar waay qalad ma lahan videogaas si qaldan ku soo galay hasii faafinina please kaliya waxa ku caawin kartiin inaydan sii faafinin oo aydan sii share gareeynin dadkiina TikTok ku jira ee sawirkeeda gadaal iska soo dhigeen ina iska deeysiin please stop attack ka daaya gabadha qalbiga ka sii jibinaysi